yaan waxaan la kulmay hooyada dhashay deeqa daahir cagadahab oo xilligaas xaaladeedu aan ahayn mid la qiyaasi karo iyo waliba da'da ka weynay deeqa iyadana oo xilligaasi aad u ilmeynaysay waxay iga warbixiyeen dareenkooda ee cidda dishay deeqa daahir cige iyagoo ka codsaday dawladda Soomaaliya in cadaaladda la horkeeno hooyada ayaan ahay waxaana hooyada Safiya Maxamed Xoosho magac wax ma sheegi kari isuga marka dareenkayga soo yahay ilaa xala maana fiican sidii waardi amal xalna soo jeeday marka alxamdulillah saqiir aqar Allah iga dhigo gacan ka xaq daran ayaa iga dishay marka waxaan rajaynayaa in Ilaahay ii soo qabto gacan waxaan idinma sheego maadaama ka soo sheego waaye marka ana xaaladeeda culus tahay oo qaawan dhar haysan ayaan ilaa saydiyaan ilaa digfeer orod ku tagay marka aniga saan ahma og dareenkayga waxaan codsanayaa in ilaa horkeen ninkaas gabadheeda dilay maskaxda bajiye cadaaladda deeq daahir cali walaasheed kaween deeq si arxan daro askari u dilay xabadana gadaal uu soo dhuftay dawladda waxa ku codsanaynaa inay sharci islaamka ninkaas noo keenaan wixii sharciga qownoolo mari deeq si arxan daro u dhimata maskaxda xabad ugu dhacday isheed dhan banaanka eed Cabdali Woosas ad guriga jooga cunugna ogaal ma lahan deeqo socota ka soo kordhacday wuxuu dhahay gabar islaamiyada xabad ku dhacday deeq ma u malay deeqad way carartooyin anagoo raadiyeen isbitaalka waxaana la waxaaba deeqo marka dawladdu waxa ka codsanayna si degdeg ah inay noogu soo jawaabaan sidoo kale waxa goobta ka hadlay mid kamid ah waalidiinta dhalay ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir waxayna sheegtay in dhibaato xoogan ay ku qabaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo waliba xirnaashaha wadooyinka iyadoo dawladda Soomaaliya ka codsatay in loo baahan yahay in xil xoogan ay iska saaraan ardayda wax ku barata gobolka Banaadir gabadha yartaana ilmaha isku basi raaci jireen inuu samir iimaan Ilaahay naga siiyo mid kale to boqol jeer waxa dhacay maalintii in la dhaho jidka uu xiran yahay waa soo baxa bajaajan soo qaataa waay uu jidka uu xiran yahay baskii hooyga xamar inuu yahay oo iskoolay ay tahay oo saaka gurigooda aan ka soo quracanin waa loo jeedaa ciidanka way u jeedaan ma sii dayn karaan ma sii daynayaan way haysanayaan ilaa aniga aan soo dago bajaaj aan soo qaato ilmahayga aan kala soo baxo noloshaas nolol oo geeridaaba dhaantaba ma fahamtay marka aan noloshaan nolol aan ku jiri karna maahan waxaan ka codsanaa iskoolka hooyga axmar kaliya ma aan ardayda Soomaaliyeed oo Muqdisho ku dhibaataysan in dhibaatada dadkan oo ilmahooda fogeysteen oo meelaha amniga ageysteen oo ilmahan masaakiinta ah iyo waalidiintan wada xanuunsan oo dhikarka wax walba sokorta qaba in macnaha nafsadooda ilmahooda loo badbaadiyo cid ma diidaysa malahan waxa waaye naf walba saacadii leedahay laakiin cunugaagi xabad in madaxa looga dhufto maskaxdiisi laga baabuurka laga soo kor guro hadana wax xuquuq meel loo saarneen oo la dhaho ma naqaan wax dilay waxaas wax soconaya ma noqon in ninkaas anaga loo gacanta loo soo gariyo cadaaladda amarsiino iyo ama aan iskaga guurno magaalada anaga aan qaxootiyaasha iska amni iyo nabad aan u doonano wax ka dhaxeeyo malahan